السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. application kan cusub oo hadda aad dadku ugu soo yaaceen taariikhdiisa, qaabka loo soo dogsado, qaabka loo isticmaalo ayaan si kooban idinku duubaya hadduu alla idmo. Iyaguna qaata si fiican uma farsameysno, muuqaalku inuu yar dheeraada laga yaabaa, waxoogaa yar samad xog badan oo muhiim ah oo sax ah oo boqolkiiba boqol run ah oo ay wax been aysan ku jirin aan ku siiyo cabaar ila joog adigoo mahadsan. inta kadib marka ugu horeysa bal waxaan ogaanaynaa xilliga la asaasay iyo shaqsiga iska leh iyo wadanka uu shaqsigaasi ku nool yahay. intaas is ogaanaynaa waxaan tegaynaa Google-ka, waan sii diyaariyay, waxaan ku qoray Google-ka who owns Caliber, yani shakhsiyan ya iska lahan. okay, shakhsiga iska leh waxaa dhahaa halkaas u korayso u jeedaan Edison Chen. 9 su'aalood oo muhiim ah oo mulkiilaha shirkaddan aad weydiin karto ee Caliber-ka. okay, application-ka waxaa la aasasay July 2022 July 2022 ayaa la asaasay. qofka iska leh magaciisa waxaa dhahay Edison Chen. sawirkiisa markaan sala aragno meeshuu ku nool yahay waa Mareykan. inuu Mareykan leeyahay, inuu Chinese leeyahay hadda ogaanaysa markaas. shakhsiga iska leh sawirkiisa raadina, shakhsiga iska leh waa shakhsigaas wada jeedaan oo kaas wada aragtaan. waa muwaadinka iska leh, waa muwaadin Chinese ah laakiin haysta dhalasho Mareykan ku nool sida aan qiyaasaya aad uma huba waqtigan xaaliga ah Mareykan inuu ku nool yahay. kii horena Chinese bala kan Chinese bala warkaas waa iga haysan. qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan. okay, qaabkee loo soo degsanayaa markaas? qaabka loo soo degsanayo app store-ka waad haysataa, Play Store-na waad haysataa. waa soo qabanaysaa kadib waxaad ku qoraysaa Caliber-na waxay u qorantaa caadi Caliber. wakaas wuu u koreeyaa Caliber chat video, Caliber video chat. waad ku dhufanaysaa calaamadaas wata markaa suurka lagu taagayo, waad ku dhufan chat uu is degsan yahay open uma dhahaya wuu sii jira, wuu is degsan yahay. waan sii dejiyay marka ciwaankan waan idin ku tusayaa, waa ciwaan cusub haddaan soo dejiyay, waxba iguma jiraan. okay, xaajidu markay saa tahay uu halkan ku keeno Gmail-kaaga geliso. Gmail-kaaga waad soo gashatay, ciwaankaaga waad soo gashatay, waad soo samaysatay. marka maxaa laga baahan inta shuruudood ee laga baahan halka laga helo? marka waxaan tegaynaa creator space, halka calaamadda caasan tegaynaa, waan ku dhufaynaa. intan oo dhan calaamad mid bal idin ku sharxaya, laakiin hadda mid ugu muhiimsan waa meesha ugu hooseysa ee Caliber Academy ay ku qoran tahay. meesha ku xigta ay ku qoran tahay my verification, waad ku dhufanaysaa. halkaas markuu ku keeno waxaad ogaanaysaa inta shuruudood ee lagaga baahan yahay iyo waxay kala yihiin. u fiirsaya inta shuruudood ee lagaga baahan yahay iyo waxa ay kala yihiin. kadib waxa lagaga baahan yahay marka shuruud ugu horeyso have at last 3k followers list, yani waa inaad haysato 3,000 oo followers. 3,000 oo followers wax yar maaha, wax badanna maaha, si dhib yar baad ku keenaysaa. okay, haddana waxaa laga rabaa videogii ugu horreeyay inay daawatay 3,000 oo qof. taasina iyadana waa caqabad waaye, laakiin way dhib yartahay la soco, ha isku adkaynin. waxaa laga baahan 7 maalmood ee ugu dambeysay inaad soo dhigteen 30 maalmood ee ugu dambeysay inaad soo dhigtay 7 video, yani bil gudaheed waa inaad soo dhigtay 7 video. 3 shuruudood buu u baahan yahay. mid walba markaad buuxiso calaamadda istilaabta ayuu ka qaadaya, tig buu saaraya. sida TikTok oo kaleeto ayuu wuxuu leeyahay wax la dhaho blue check verification oo halkaas hoose ku qoran. intaan isla fahnay waan ka noqonaynaa. haddana halkan waan ka laabanaynaa, meel kale muhiim ah in geeniya. waxaad aadaysaa meesha ku qoran tahay edit profile. markaad aado waxba is mashquulin magacaaga iyo
waxaa dhan isaga kuu si diyaariyay 3 bilood kadib baad bedeli kartaa hadda waqtigan xaaliga ma bedeli karaysid okay haddaad TikTok leedahay haddaad YouTube leedahay haddii aad leedahay waxa la dhaho Twitter X haddaad leedahay Instagram haddaad leedahay link baad geynaysaa halkan waa ku qoran tahay add X link profile add TikTok link profile iyo add Instagram profile YouTube xataa saaran kartaa Facebook xataa saaran kartaa see loo saaraya marka tanaad ku dhufanaysaa halka markaa tagto halkaas YouTube ku korisiiyay inta application ee aad linkskayga keeni karto si ay dad badan kaaga soo raacaan waa kuwa YouTube baa u horeeya Facebook baa ku xiga Patreon aan ma aqaano Twitch ma aqaano OnlyFans ma aqaano Ram kuwito ma aqaano Easy ma arag iyo kuwa kale badan halka ma isla fahanaa khair inta marka isla fahanaa meel kale oo muhiim ah ayaa jirto waad ka baxaysaa 3 dhibcood ugu koreeya ayaad aadaysaa 3 dhibcood ugu koreeya markaad aado waxaad aadaysaa manage account halka ku qoran tahay waad ku dhufanaysaa intaan halka aadin meesha luqadan aadana language ka ku qoran tahay laba luqadood kaliya uu leeyahay Spanish iyo English labada luqadood midkaad perfect ku tahay application-ka waad fahmi doontaa wax badan baad ka fahmi doontaa aan ka laabto meesha ay ku qoran tahay manage account ayaad aadi waad ku dhufanaysaa halka wuxuu ku soo saarayaa Gmail-kaagii iyo haddii aad telefoon number gelisay anu hadda kan ma isticmaalayo dadku ma raba inaan wax ku tuso mid kale oo weyn baan leeyahay oo maxaa la dhahay magac ugu qoran yahay okay halkaas marka ay maraysa xaajadu waxa u baahan tahay oo muhiim ah inaad ogaatid arintan meesha ay ku qoran tahay shipping address waa muhiim shipping address baad ku dhufan markaad ku dhufatid waxa la add new address halka ku qoran tahay hadda no address buu ku dhaho iyo ku dhihi doona adiga waad ku dhufanaysaa halkan ma ku keenaya marka magaca sida saxda ah ee kugu qoran sharcigaaga ka fiirso walaalkay ama walaashay ka fiirso magaca kugu qoran ID card-ka aad haysato haddaad Xamar joogto haddaad Hargeysa joogto haddaad Jigjiga joogto haddaad Djibouti joogto iyo haddaad Garissa joogto magaca kugu qoran ciwaanka laftaada sharcigaaga magaca kugu qoran sida uu qoran iyadu gelaysaa magaca koobaad iyo magaca familka iyo magaca awga iyo magaca abaha first name iyo last name magaalada aad degan tahay xaafadda aad ka degan tahay street-ka aad gelinaysaa tusaale ahaan waxaad gelinaysaa tusaale ahaan ya waxaad gelinaysaa German waxa la dhahaa Straße Talyaanina waxa la dhahaa Via Englishkana waxa la dhahaa street marka adiga wadanka joogto haddaad Holland joogto luqadda Holland waxa lagu dhaho Via ama street ayaad ka bilaabaysaa waa xaafadda lambarkaaga waad garanaysaa cid kasta way fahmaysaa tusaale ahaan baan gelinayaa waxaan gelinayaa Via ogaadeen oo Rome ku taalo ayaad gelinaysaa waxaad gelinaysaa haddaad doonto Avenue oo Faransiisa Avenue de Djibouti oo Paris ku yaalo waa caadi waad gelin kartaa waa haddii aad degan tahay waay halka marka isla fahanno tan labaad oo ay ku qoran tahay aptitude unit another options iska dhaaf waxba ha gelin meesha ku qoran tahay zip code-ka tusaale ahaan magaaladaada xaafadaada wuxuu noqonayaa 4970 tusaale waa kaygaya 970 ayuu noqon kayga waaya magaalada aad degan tahay marka ayaad gelinaysaa tusaale ahaan Frankfurt tusaale ahaan ya ama waxaad gelinaysaa Kismaayo ama Djibouti adiga meesha degan tahay haddana mar labaad waxaad gelinaysaa isla street-ki aad gelisay jidka aad ka degan tahay xaafadda aad degan tahay jidka aad ka degan tahay lambarkiisa ayaad gelinaysaa halka ugu hoosena waxaad gelinaysaa wadanka aad degan tahay Soomaaliya Djibouti Kenya Soomaali galbeed iyo wadanka kale adiga aad degan tahay ikhtiyaarkaaga halkaas waa isla fahanaa waa muhiim hadheelsan waan ka baxaynaa waan ka laabanaynaa meel kale oo muhiim ah jirta meeshan ay ku qoran tahay do not view NFW waad bedelaysaa waad ku dhufan hadda wuxuu ku yahay adiga soo degsida application-ka cusub wuxuu ku yahay not set buu ku yahay not view ka dhigan waxaad dhahaysaa view
wuu bedelay mawjada waan ku noqday haddana isla halkii waan ku noqonayaa do not view dii baan ku laabanayaa mid baa hawada ka saaray not view mawjada not view hadda view inoo saaran viewgaasaad ku deysanaysaa hoos ba haddana usoo degsanay send direct message waa muhiim akhyaaray waa meesha ugu muhiimsan qof walba oo dhalinyaro oo applicationka ku cusub waa muhiim send direct ayaad ku dhufan halkan waa inaad iska akhrido markaa waa inaad halkan iska akhrido waa inaad luuqadda aad ku wanaagsan tahay aad ku fiican tahay waa inaad geliso أنا فرنسيس ما كوفي عنها فرنسيس بان هالكن أترجمت ومهم و very important وإن تفهمتي هالكن وحي كار ليسو مركا أور skip your phone full charge ومركا application كار استعماله يسو حالة دي سي يعني مركا start sense هذا يعني تلفون كار هو إنه بوحه وبيتريجس وفوليها يعني وحلا جيابا إنه وريجو أو هم وين كودرو أنا قلت صراحة دلنيرتنا هذا إنترنت شوكته قربها 5G wanaysan laga yaabaa adiga inaad 5G aadan haysan inuu khadkaagu daciif yahay dhici karta meelaha qaarkood inuu khadku adag yahay laga yaabaa battery inuu ka dhac laga yaabaa battery-gan hore u goosto la soco haddaad iPhone isticmaasho yaa weeleg haddaad Samsung isticmaasho you are very person looga baahna halkan iPhone-ka battery-gu hore u cunaya ama ha cusboonada ama yuusan cusboonaanin network-gaaga waa inuu fiican yahay oo network adag haysto network jiljileecaysan hore u sheegay uma baahno keep phone screen yani screen-ka markaad application-kan aad hadda meeshan hadda aan ku jirno ee send direct message aad joogto waa in shaashadu ay ku daaran tahay keep Clapper on yani waa inaad Clapper-kan aad ku jirto okay start send ma dhayn halka ugu hoosan ku dhufanayna start send ma dhahayna calaamadda tigtu saaraya wuu wareegaya hadduu khadkaagu adag yahay oo khadkaagu yahay khad jilicsan hore kuuma dhamaanay ani hadda uu dhamaaday halka ugu hooseysa waxaan taginaa go direct message mawjidan waa muhiim akhyaari inbox bookina you can view your direct message on inbox book dhahay waad ku dhufanaysaa wakaas 17 message buu soo diray hadda kana ugu horeeyo yani dadka oo gruubyada sameysay oo gruubyada aad kamid tahay group wiil uu soo sameeyay la hore noola soco ayaan ku jiray isla message ku halkaas ku soo dhigaya dadkii message-yadii ay ku soo direen iyo dadkii wixii dhan ay ku soo direen ayuu ku geenaya aan ka laabto halkaas aan ka laabto dib baan ugu noqonaynaa isla meeshii because dib inoo soo celiyay saddexdii dhibcood baan dib ugu laabanaynaa direct message-ki WhatsApp garaysatay account manager-kii baan aadaynaa views-ki waad soo bedeshay delete message-na waad aragtaa okay meeshan waa muhiim waan ku celinayaa halkaas waad ku sii dhufanaysaa hadda uu caadi uu diyaar gareysan yahay ciwaankan hadda aan idinkala hadlayo aan wax idinka duubay uu diyaar gareysan yahay toos shirkadu 24 saac kadib message bay soo diri doontaa hadduu alla idmo oo ay ku leedahay ku soo dhawow waxaan ku faraxsanahay inaad Clapper ka mid tahay halkaas markay xaajidu marayso mid baan isla fahmaynaa haddana coins-ka qaabka loo iibsado iyo coins-yadiisu intay kala yihiin wixii baan haddana isla ogaanaynaa waxaad ku dhufanaysaa Clapper coins meeshaas u korayso u jeedaan Clapper coins ayaan aadaynaa waa zero hadda wax igu jira malaha ciwaan kale oon leeyahay ayaa waxa igu jirto 70,000 oo coins ba igu jirto dhalinyarta hadda isticmaalayso oo ku soo shumuuntay ayaan ka mid ahay maalintii labaad baan isticmaalaya followaygu malaha 1800 wax noocaas uu iyo maraya ciwaanka kale aan leh isna waa intuu doona hadduu alla idmo okay xaajidu markay halka marayso coinskiisu $1 ama €1 99 wuxuu dhigmaa 70 coins coinskiisu kii hore way macnaa way ka raqiisan yihiin marna way ka qaalisan yihiin dollar buu kuugu bilaabaya ilaa Mareykan baa application-ka laga leeyahay haddana kadib euro kuugu bedelaya marka waxbuu ku dul saaran halka hadda 90 euro haddaad Yurub joogto wuxuu kaaga dhigi doonaa €1 iyo wax yar buu kaaga dhigi doonaa tusaale waan ku dhufanaynaa mar raba hadda inaan coins aan iibsado oo aan galo wakaas waxba isma dheeraan sarifka
dollarka iyo euradu waa same, waxba isma dheero. halka coinsku halka laga iibsado. meeshan ay ku qoran tahay report problem ha tegin. haddii aad dadka heesaha iyo wax iska soo duubiyaa tahay, xaalkaas wuu isbedelay, xaaladaas way isbedeshay hadda kadib. haddii aad hees qof leeyahay oo copyright leh oo qof caan u leeyahay aad soo qaadato ood music soo saarto, videoga way kaa tuurayaan, blog bayna kaa saarayaan isla videogaas. ka taxadara dadkiina heesaha isku duuduubo oo heesaha aad ku isticmaalo, anigu kuma jiro. add my music clipper baan dhahaynaa, waxaan aadaynaa markaa wuxuu nageenayaa isla clipperka laftirkiisa qaybta heesaha iyo waxaa laga gato nageenaya. heesaha aad gadanaysa hadday yihiin aad isticmaalaysaa oo aan copyright lagaa saarin baa laga hadlayaa pop, rock, iyo waxyaabaha kaleeto anu ma aqaana, heesaha iskuma ficni. kadib waxaad gelinaysaa add your file, يعني heesta aad soo qaadatay music aad soo qaadatay shahaadadiisii ogolaanshaha lagu siiyey, fanaankaasi ogolaanshaha uu ku siiyey, filekeedii baad soo qaadaysaa halkan aad gelinaysaa. maxaa saaqaa ku geliyay mad codkaaga kaliya iska duubatid. dib baan u laabanaynaa. dib markaan u laabano akhyaar isla clipperkii baan dib u noqonaynaa. halkan ay ku qoran tahay join great group oo farta waaweyna ayaad ku dhufanaysaa. waxaad samaysanaysaa group name. qof walba oo flow ku dhaha groupkaas soo gelaya. haddii aad live aad soo gasho groupkaas u diraya dadka kaleeto. live baad soo gasho Soomaa, live baad ku jirta, qofkaas u diraya. live sida loo galana iyadana waa in tusaya. waa wax dhib yar. islaabtaas tegaysaa meesha pluska tegaysaa, waa sida TikTok oo kaleeto. haddaad rabto inaad cod ahaan live u gasho oo cod kaliya aad isticmaasho, meesha ku qoran tahay radio ayaa tegaysaa. haddaad rabto inaad video soo upload garayso oo video aad soo saartana, waxaad tegaysaa meesha video ku qoran tahay. haddaad rabto inaad live aad gasho, waxaad aadaysaa meesha ku qoran tahay live meesha ku qoran tahay. marka aadno kaamaruhu toos buu kugu furaya. xarfaankan kaamaraha ayuu toos kugu furaya. kaamaraha markuu toos kugu furo, soo jeedistii ood soo jeedinaysa kaamaraha iyo soo jeedistii labada waata ugu korayso. haddaad rabto inaad waxoogaa filter iyo khamkham aad saartana, filter fara badan ma laha. wuxuu leeyahay mid maski ah iyo mid indhaha loogu talagalay iyo wax yar oo wejiga ku saabsan. haddaad rabto inaad kala riixriixido, filteradaasna intaasuu leeyahay, wax saa u sii badan ma aha sidii kii TikTok kaleeto ma uu ahan. walaalihii Soomaaliyeed oo filterada aad ku isticmaalaya waxoogaa halkan way ku yara adkaanaysaa. haddana waxaad tegaysaa meesha setting aad aadaysaa. waxa muhiim ah markaa inaad aadid which list meeshaas ay ku qoran tahay. waxaad ku dhufanaysaa meesha isla balaaskaad kusoo dhufanaysaa. marka haddii aad rabto in koonasiya fara badan iyo lagu soo diro, koonasidiisa waxa ugu caansan kaniisadaas ugu caansan iyo baabuurkaas waa lacag aad u fara badan, waa la isu diraa. waxyaabahaas kooniskiisu waxyaabaha weeye libaaxii iyo nacnacdii iyo muulahan. waxyaabahaas wuu leeyahay sacabkaas oo aad qofka isooga sacabin karto. conton coins waxyaaba iska easy ah oo adiga aan saas muhiim badan u lahayn ayuu leeyahay. laakiin kaniisadaas kale tii calaamada shamca oo kale tii waxba taabanina qofka waxa uu taaban loofkaas iyo dhunkashadaas iyo calaamadan la dhuuda iyo kaniisadii waxoogaa waa yar qaalqaali weeye. meeshii libaaxa kaniisad bay ku bedeleen, calaamada shamca gaalada ay ku bedeleen. yani waxyaabahaas uu iska leeyahay. dan intaa markaan isla fahno waa iskaga laaban. star baad leedahay, go live star baad dhahaysaa. haddaad doonto intaadan live star dhihin ayaad waxaad ku qoraysaa topiga meesha aad ku qorayso. topiga iskaga qoraysaa Soomaaliya ha israacdo ayaad tusaale iskaga qoraysaa Soomaaliya ha israacdo. waa tusaale ahaan. kadib star baad dhahaysaa. star marka dhahdo saanuu ku dhahaya, halkan uu ku geenaya. markaas wax yar uu kaadi ku leeyahay, wax yar uu kaadi. okay, halka markii mar hayso dadka ku soo dalbaday oo live-ka soo fuulay oo live-ka soo dalbaday inay live-ka galaan. hadda ano online ano wax idin sharxaya live-ka laakiin waa iskaga bixi doona insha Allah. dadka ku soo dalbaday halkan ay soo istaageen saddexda dhibcood, saddexda waji ama saddexda madax ay dadku soo istaagi doonaan.
hadda waa zero wax ku shaargaray uu leeyahay waayo ciwaankan waxdada iguma jiraan inaan idinka waxay ku tusoo maan usoo degsaday tan waa calaamada shaar oo inaad dadka ku shaargarayso halka bayteriga calaamada bayteriga ha taaban haddaad hal mar taabato toos live-ka waad uga baxaysaa meeshan saddex dhibcood yarka waa muhiim meeshan saddex dhibcood yarka waa muhiim commentiga adiga wuu kaa qarinayaa meeshaas ay ku qoran tahay meesha ay ku qoran tahay message ee ugu hooseyso ayaad ku dhufanaysaa commentiga saas kugu furay hello ayaa iska qoraynaa hello brother baan iska qoraynaa commentiga waa halkaas u galaya korkaas soo istaagaya commentiga saddex dhibcood baan ku laabanaynaa camera hadda rabta inaad isku soo jeediso waatan flip waad soo jeedinaysaa haddaad waxoogaa inta camera soo jeediso aad filter iyo waxoogaa yaroo khamkhamayna asaarta aad rabto waad soo jeedinaysaa hadda durba dad baa imaaday hal qof baa imaaday coins ba iska soo dirayaan applicationka waxa aad u isticmaala dadkan Latin Americanka ayaa aad u isticmaala nice where are you from I am from Somalia sister dad baa iska soo galay ma raba hadda marka inaan ku sii jirjiro oo aan live aan si dhex taagnaado okay the stroke meeshaas ay ku qoran tahay gift waa meesha giftiga laga dirayay oo giftiyada waxa aad dadka uga dirdiraysi waayo ana hadda wax gift iguma jiro wax koon Soomaaliya soo gadanin qaabka lacagta loo bedelanayo iyo qaabka coinska loo bedelanayo isla hadda ayaa intusaya video waxoogaa waan dheereeyay tartiib waad fahmi doontaa inta ugu muhiimsanadu baan idin sharxayaa oo aan raba inaan idinka dabageeyo ma aha wax kale oo saas oo muhiim masi ah muuqaalkuna kulay waxaan soo dhigi doonaa isla YouTube-kayga oo aad arki doontaan oo korka aad ka arki doontaan laba qof ba hadda ina daawanaya halkaas labada qof ee ina daawanaysa aad ku dhufanaysaa qofka aad rabto markaa inaad follow aad u noqoto meesha pluskaas aad taabanaysaa hadda aan gabadhaas aan u taabto follow baa leedahay markaas haddaad rabto inaad soo qabato gabadhan iyada ah waxaad taabanaysaa meesha calaamadaas yarta ah ee gacanta huruudda ayaa taabanaysaa tusaale ahaan klister follow baan u taaban rabaa wakaas labada qof hadda follow baan ah dad badan bay haystaan dadkan meel ay dadka keenan ma garanayno application-kana saan hore u sheegay 2000 iyo waxaa la asaasay iyo 20kii June ayaa la asaasay 2020kii waagii hore magaciisu wuxuu ahaa Club News Latin Americanki waxaas iska isticmaalayay hadda ayaa dib loo cusboonaysiiyay maadaama la dhahay TikTok baa la xirayaa bla wax noocaas ay dhaheen hadda dib loo bilaabay okay akhyaar live-kan hadda waan ka baxayaa si aan coinska iyo qaabkiisa aan idin tuso iyo halku coinska soo galayo iyo qaabka lacag ahaan loogu bedesho saddexda coins 30 coins hadda la ii soo diray inta ay noqotay baan idin tusayaa waan ka baxay live-kii waxaan aadayaa meeshii coins ku qoranta hadda intii yareedeen live-ka ku jiray waxa isu bedeshay 2 cent waxaan ku dhawaanaa incoming-kaas aan ku dhufanaynaa 220 senti ayaan helay dollar ahaan markii loo bedelo wax yacni waxba ma noqonayso qaabka marka lacagta loo shubto oo lacagta looga dadsado live-ka liftigiisa lacag baad ka helaysaa 3,000 markaad buuxiso shuruudaha 3 shuruudood aan soo sheegay dib video-ga ugu noqon doontaa shuruudaha aan soo sheegay 3 markaad buuxiso qaabka lacagta loo bedeshay intuu markaa withdraw daas ku dhufanaynaa exchange to coins meesha ku qoran tahay meesha coins aan ku dhufanaynaa halkaas aadayna application-ka ojka inta badan Europe lagama isticmaalo Africana lagama isticmaalo saan filayo PayPal-ka ayuu laba nooc ku soo dhigayaa transfer to your PayPal oo PayPal-kaaga ayaad ku bedelanaysaa midan hoose markaa muhiim ah transfer your PayPal transfer to your bank taasaad ku dhufanaysaa markaa address-kaagii ciwaankaagii hawlahaagii oo dhan bay kaaga baahanta waa muhiim taasina iyadan application-kana dadku say hadalka u dhigayaan ma aha 100% uu ka faa'iido badan yahay TikTok waa uuna ka wanaagsan yahay ojka haddaan tagno ma aha sidii sida Europe iyo Mareykan lagama isticmaalo Europe iyo waxaan ka wadaa iyo Africa lagama isticmaalo waa Mareykan
intaasaan kusoo gabagabaynayaa. tartiib maalin walba wax idinku soo sharxaya oo aan xogta usoo gudbinaya. magacaygu waa Cabdiraxmaan. waxaad igu imanaysaa xog sax ah oo rasmi ah oo 100% run oo lagu kalsoon yahay oo Caliberka ku saabsan. haddana hadda intan inaan exchange u bedesho aan rabo, coins aan u bedesho aan rabo, waxaan aadayaa tusaalahan 70 coins muu noqonaya? haa, wuu noqonaya. 70 coins baan u bedelanaya hadda intii yarta ah in ku jiray 70 coins baan inaan u bedesho isku diyay, laakiin iima gaarayso waayo waa wax la isoo diray wax ma ah, wax yar baan ku jiray. 3 saacadood haddaad ku jirto lacag fiican baad ka qabanayso oo wallaahi oo bilaahi. username-kayga, ciwaankayga kaleeto halkan aad idiin soo dhigayaa si aad u ogaataan oo idinkuna aad follow ii soo dhahdaan. tusaale ahaan waxaan wataa ciwaankaasaan wataa dalka maanta. waxaan haystaa 1700 follow. hal video keliyaan soo dhigay. waxaan haystaa 12 star buu bixiya waxyaaba calaamad loofa ayaan haystaa. weli dadku inta badan ma haystaan. ciwaankaygana waa kaas. youtube-kana aan soo dhigayo oo aan hadda videoga soo dhigayna isla halkaasuu saaran yahay, korkaasuu saaran yahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.